magaalada Hargeysa waxaa markii ugu horeysay lagu sameeyay qalliin indhaha ah oo bukaanka loogu galiyay il qofka loo lahaa. qalliinkaas ayaa lagu sameeyay ilaa 7 qof waana lagu guuleystay sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. wariyaha BBC-da Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad ayaa tagay cusbitaalka oo warbixintan ka soo diray. waxaan ku suganahay cusbitaalka indhabeerista loogu sameeyay 7 qof. dhammaantoodba waxa aad u liitay aragooda ka hor intii aanay fursadan helin. waxa laga saaray wiilka madow ee ishooda iyadoo loogu bedelay wiil la mid ah oo laga keenay waddanka Mareykanka oo ay lahaayeen dad dhintay oo Mareykan oo ku dardaarmay intaanay geeriyoon ka hor in indhahooda looga faa'iideeyo cidii u baahan. waxa kamid ahayd waxyaabaha dhadhow oo kale ma arki jiray laakiin waxyaabaha fog ma arki jiray. ninka alxamdulillah way soo fiicnaanaysaa meel fog wax ka arkeen. dadka fursadan ka faa'iideystay oo 7 ah hooyadan ayaa kamid ah oo halkan wiil loogu qalay. bal wiilkaaga xaaladiisa iga war waxa iska bedelay intii fursadan qalliinka uu helay. ma sha Allah buu ku jira aad buu arkayaa. waxa jiray wiil hore oo aad qashay saan maqlay oo dibadaha aad ku qashay. lacagta ku kacday waxay noqotay oo ku kacay 35,000 oo dollar oo dawada ku jirin. marka ala kulli xaal kana kun baa loogu dalbay kunna markii dambaana laga qaaday aan dawada ku jirin waa 2,000. waa fursad ay u baahnaayeen inay helaan dad badan oo aan heli jirin haddii ay indhabeelaan arrin ama dadaal ay kaga soo kabtaan. Dr. Yaasiin ayaa waxa uu yahay maamulaha cusbitaalka hawshan qabtay. Dr. sidee bay idinku suura gashay in indhabeeris aad u sameysaan dadkan aad u adeegteen? Bismillahir Rahmanir Rahim. beeristani waxay ku timi in xanuunka la ogaaday inuu yahay xanuun aad inoogu badan. da'duna ay tahay da'ihii waaweynaaye caadka aynu oran jirnay aan ahayn ay tahay in nabaro ama infections badan oo meesha ku dhacay caabuq badan oo isha ku dhacay uu keenay in xuubkii yaraa isha dul saarnaa uu dhaawacmay aragtidiina ay isbedeshay. maamulka cusbitaalka waxa ay sheegeen in maadaama ay ku guuleysteen qalliinkan qaybtiisii ugu horeysay in ay wadi doonaan dad badan oo kalena ay uga faa'iideyn doonaan iyadoo imakaba ay diiwaan gashan yihiin 12 qof. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa.